hagaag barnaamijka aan guda galeynaa aayadaha quraanka kariimka qowlka eebe oo wax lagu daawo furto waxa uu khayrka badan ayaan barnaamijka daaha uga qaadan doonaa xasan cusmaan qofal ayaan soo dhaweynayaa بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم wasiirada maamul goboleedyada xildhibaanada senatarada oo ayaguna gordhowna soo gaari doono dhalinyarada ardayda abwaanada iyo qorayaasha waxaan ku salaaminaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu salaanka bacdi waxaan ku faraxsannahay inaan maanta nagala soo qayb gasheen oo aad naga aqbasheen casuumaadda bandhigga buugga gurceel jannaad runtii farxadda ayay inoo tahay inaa intaanoo qof iyo ka badanba ay nagala soo qayb galaan taasna waxay ku imaatay codsi dadka deegaanka iyo dhallinyarada ka imaaday in buuggaasi loo soo bandhigo oo ay ka faa'iidaystaan buugga iyo wuxuu ka hadlay waxaa ka hadli doona qorayga insha allahu tacaala waa ka bogi doontiin waana ka dhergi doontiin waxaa ugu weyn oo aan ka codsanaya waxay tahay inta barnaamijka noo socdo in dhaqdhaqaaqa howlka la xadido looga dambeeyo howsha qolada brotokoolka waxaan sidoo kale codsanaynaa cidda qolooyinkan kaamiramaanka iyo brotokoolka markii laga reebo dadka kale inay noo fadhiistaan waxaan goordhow soo xariisan doonaa ayagana madax oo buuggan nagala soo qaybgelayso oo dadka nagu dhiirigeliya inaan xafladdan buugga u qabanno ah muhiimadda ugu weyn oo soo istaagana waxaa waa inaan dhaho xafladdu waa inoo furan tahay hadda laga bilaabana waa inoo furantaa mahadsantiin يونس aad buu mahadsan yahay dhammaantiin waad mahadsantiin waxaan dareemaynaa in kuleel uu jiro sidoo kalena hoolka uu nagu yar yahay dadka aan casuumnay ee halkan noogu yimid aad bay u mahadsan yihiin dhammaantiin waan idin mahad celinaynaa barnaamijku waa uu inoo sii soconayaa khudbadaha waxaan jecelnahay dad aad u fara badan ayaa inoo qoran oo inoo jooga dadka inoo joogana waxaan jecelnahay inay soo koobi doonaan waqtigana waxaan rajaynaynaa inaanu si fiican oo ku filan uga faa'iidaysano balse hal shardi ayaan wataa dadka halkan ku sugan maalmo badan ayaad baraha bulshada ka aragteen barnaamijkan in maanta la qaban doono dad badan ayaa u soo labistay oo isteelka u soo saxay si halkan ay u imaadaan bal waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idinku shardiyo qof waliba dadaalka uu geliyey in halkan uu imaado isagoo iskaga mahad celinaya in naftiisa uu u sacbiyo hal sacab hagaag aad baad u mahadsantihiin dadaalka iyo waqtiga dheer ee aad noo soo geliseen inaad noo imaataan wax muhiima ayaa inoo jiri doona waxaa inala jooga dhallinyaro aad muhiim u ah qaarkood dhallinyarada Soomaaliyeed oo dadaal badan geliyey in ay fariimo la wadaagaan bulshada qaybadeeda kala duwan waxaa halkan inoo fadhiya wiil dhallinyaro ah oo 18 gobol ee Soomaaliya tegay mid kasta si fariin wadaniyadeed oo ula wadaago hal mar igu sacbiya هقول عافي ويلك استمها وين وانا رير هرجيسة هجاج كلية شاكدو ما هرر جرعال ويكدو أنت هاي waxay noo jooga qaybaha kala duwan goordhow waxa howlka inoogu iman doona inta badan halkan dadka jooga waxaan rajaynayaa haddii galabta xadgudub oo dhaco oo la yiraahdo degme heblaayo ama deegaan hebel waayaan la isku qabanin sheekada sababtu waxay tahay buuggan waxaa la yiraahdaa gurceel jannaad agaag xildhibaan maad salaad ayaa inoo imaaday hal mar iyo istaaga hal mar inaad u istaagtaan ayaan jecelnahay xildhibaanadeena sharafta leh aad bay u mahadsan yihiin xildhibaan maad maxamed salaad xildhibaan cadow iyo sidoo kale qaarkood madaxda Hirshabeelle ayaa inala jooga hagaag waa maasintiin fariista sawaxankana ay yareyno hagaag xaaladda sidoo hore aan ku soo celino waa tahay aad baad maasintiin mar kale barnaamijku uu noo soo soconayaa sawaxanka hoolka aan damino taaya codsanaya sawaxanka hoolka aan damino waa hagaag barnaamijka markan waxa aan jeclahay si madaxda inoo imaatay ay fariimahooda inoola wadaagaan jawigu si caadi ah inuu ku soo noqdo qorayaasha ayaan dhankooda aadi doonaa goordhow madaxda inala joogto xildhibaan Mahad Maxamed Salaad iyo xildhibaan Cadow ay kamid yihiin waa wasiir Cadow cafwane ayaan halkan keeni doonaa oo inala hadli doona insha Allah markan waxaan jeclahay inaan dhanka qorayaasha u weecdo Mustafa
waxaa xusid mudan inuu ka tirsan yahay naadiyaasha akhriska iyo qoraalka ka shaqeeya muqdisho naadiyaal badan ayaa inala jooga haddii ay ahaa lahaayeen naadiga maskax shiil oo runtii barnaamijkana inuu qabsoomo qayb weyn ka qaatay sidoo kale naadiga akhriska iyo qoraalka ee banaadir ayaa halkan iyana inala jooga iyo madax kale oo dhanka qoraalka ah jaamacaduhu kama marna qaarkood way inala joogaan hagaag kuma sii dheeranayo markan waxaan jeclahay in aan halkan keeno qorayaasha muqdisho mid ka mid ah ahna xogayaha naadiga maskax shiil waa ustaad xaashi nuur cabdiqaadir ila soo dhaweeya ustaad xaashi khudbadiisa kooban ayuu inala wadaagi doonaa maadaama mustaf naadiga uu ka tirsan yahay uu u yahay xogaye أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان مرت شرفت كسو قيب قشي مدشنا قروح بدن قف والبا يا محوها منصبك وكسو قيب قلي بان كسلامية وقتي قاعد سكير ما بدينا إن شاء الله هدي لا يرادو وجهرين قراجة بوق قراي مصطفى صاحبكي آديات بان وهم بلينا يا بواق بدنا أو قرينا وان أخريي buuggan qiimaha badan ee guriceel jannaad runtii waa buug aan markaan akhriyay wax badan yacnihii aan ka ogaaday magaalada guriceel oona run ahaantii nasiib aan u yeelan inaan tago intaas haddaan kaga soo gudbo golaha maskax shiil xiriiryaha naadiga buu dhahay marka golaha maskax shiil waa golaha qorayaasha Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ka asaasan yahay Mustafa member buu ka yahay runtii waxyaabaha golaha maskax shiil uu taagan yahay waxa kamida madalahan oo kale marka anaga aan aragno in la qabanayo runtii dadka soo abaabulay iyo dadka ka soo qayb galayba dadka way nooga duwan yihiin waxa yeelay bulshada muxuu ahaa indhaheeda ama bulshada muxuu ahaa qaybaheeda kala duwan yaa wax muxuu ahaa loogu faa'iideynaya sidaan ognahay dadka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca akhriska iyo qoraalka run ahaantii sanadihii la soo dhaafayay way uga fiicnaayeen muxuu ahaa taariikhdeedii hore maxaa yeelay wax badan baa isbedelay wax badan baa muxuu ahaa aad arkaysaa oo buug la soo bandhigayo wax badan baa qorayaal arkaysaa runtii hal kelmad baan rabaa inaan muxuu ahaa dadka meesha jooga dhammaantood madax mas'uuliyiin kulli aan u sheego taasoo ah dhiirigelinta muxuu ahaa qoraaga walow muxuu ahaa ha qoro tuulo muxuu ahaa kamid ah dalka Soomaaliyeed waxa ka qore waxaan leeyahay qoraagaas waa in la dhiirigeliyaa sidaas darteed muxuu ahaa qoraagu sidaas darteed dhiirigelintaas waxay u horseedaysaa inuu wax badan oo muxuu ahaa aan maanta waxba laga ogeyn inuu wax ka iftiimiyo laakiin haddii dhiirigelin uu waayo halkaas uu kaga tagayaa kaas uu qoray maahe ku kale muxuu ahaa kuma dhiirinaya inuu qoro aad iyo aad baad u mahadsantihiin halka fariin ee kale aan ku celinaya waxay tahay muxuu ahaa dhowrka xabe halkaas la keenay ee buugta ah inteena meesha fadhida ka badan inaan hal xabo aan laga tagin baan muxuu ahaa aan idin farayaa waliba nasiiba mas'uuliyiinta inay aad buuga muxuu ahaa qoraaga u dhiirigeliyaan dhammaan hadaan nahay golaha maskax shiil insha Allah waan qaadanaynaa buugan anaga horeyna waan u akhrinay haddana insha Allah qoraaga waan sii dhiirigelinaynaa aad iyo aadna waad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أدبد ما تسنتهاي أستاذ حاشي وهاجاك دوت أيا إنه جري دون تصدق كله مهم وأن دمانتين وحكفة إيدي دونه قرياش قاركود أيا هل كان دوت مهم أو كسابسن qoraalka iyo muhiimadiisa iyo dhalinyarada xilligan inay u diyaarsan yihiin in ay wax muhiim ah bulshada u soo saaraan ayaan idin wadaagi doonaa balse markan waxa buugan la yiraahdaa Guriceel Jannaad Mustafa Samisabriye oo ku dhashay kula soo barbaaray magaalada Guriceel ayaa qoray waxa uu ka hadlayaa wax badan oo ku saabsan magaaladaasi waxa jira dhalinyaro muhiim ah bulshadana dhexdeedana magac ku leh oo magaalada ka soo jeeda iyo dad macna gooni ah inoo xambaarsan bal haddaba waxaa jira sidoo kale dhalinyaro fara badan oo jaamacadaha Muqdisho dhigta oo deegaanada ama magaalada Guriceel wax ku soo bartay oo iskuuladoodii iyo dabcan kuna soo barbaaray haddaba waxaan jeclahay in aan soo dhaweeyo mid ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi ka soo jeeda waa magaalada Guriceel oo ku hadli doona afka dhalinyarada jaamacadaha Muqdisho ku dhigata magaalada Guriceel ka soo jeeda
waa cabdicasiis cali diiriye galaal cabdicasiis cali diiriye haddii uu joogo wasiirada agaasimayaasha xildhibaanada iyo madaxda isugu jirta heer gobol iyo heer federaal aqoon-yahanada isugu jira iyaguna sidoo kale wiilal iyo gabdho cafwan waxaan ugu soo biirtay oo la ii sheegay inay nala joogto senatareed jawaahir axmed cilme waa tana hagaag aad baad u mahadsantihiin jawaahir axmed cilme aad baad u mahadsan tahay soo dhawow jawaahir maamadeenna senataradeenna aad baan qalbiyada kaaga taageeraynaa haye xaaladda sidii hore noogu soo celiya madaxdu way inoo joogi doontaa sheekooyin muhiima ayay nala wadaagi doonaan haye aad baad u mahadsantihiin galaal ayaan dib ugu celinaya marka koowaad waxaan rabaa si guud inaan ugu mahad celiyo dhammaan ururka maskaxshiil iyo dhammaanba qorayaasha Soomaaliyeed oon aaminsanahay runtii haddii sa ayagu jirin in wax badan oo hadda dhunsan ay sii dhumi lahaayeen waxaa la yiraahdaa hadda ka hor waxaa soo maray dad isla degan bil Ramadaan oo aad u kulul bishaas Ramadaanka marka waxaa ku jiray bishaas ugu horeeyay inuu soomo oo inta lagu wacdiyay inuu soomo loo sheegay soonka iyo waajibkiisa iyo qofka ka taga waxyaabaha Ilaahay oo u diyaariyay in lagu ganaaxo adweyn haddana wuu aqbalay bishaas wax ka soomay marka bisha waxay aad bil aad u kulul abaar ku soo aaday wuxuu sameeyaa markuu weysaysanayo oo yiraahdo nawayta fardal wudu oo wuxuu sameeyaa biyaha markuu wajiga sii maraa wax yar wax ka badaa markii soonkii dhamaaday waxa dhacday waa la iswareystay waxa laga sheekiyay soonka iyo marka sidoo u kululaay iyo soonkaas sidoo ahay marka ninka hadalka soo dhaxgalo wuxuu yiri fardal wudu lagu fakaday maahane qofna ma noolaateen micnaheedu waxaan kala jeedaa qorayaashan haddii aan lagu fakalan waxaan aaminsanahay in afku hadda meesha uu joogo ka sii hoos mari lahay maadaama dhaqankii in badan oo kamid ah ay dhumeen dhammaantiin waxaan aaminsanahay dhalinyaro ahaan waa aragnay qofka markuu kula soo hadlo internetka markii la isticmaalayo ama fariin qoraaleedka gaagaaban ee text message-ka wuxuu qofku ku soo qoraa assalaamu calaykum wuxuu soo qoraa sa iyo ca wuxuu ku soo qoraa xaaladda ka waran wuxuu ku soo qoraa xa iyo la iyo da adiga waa la hadlay waxa leedahay waa fiicana waxa uu qoray wa iyo f iyo ca iyo na dhammaanteen marka raaligelin buuxda bixino aan u hambalyeeno walaalkeena maadaama annaga kaalin dhumino oo isaga matalayo Mustafa waa u hambalyeynaya dhammaan qorayaasha Soomaaliyeedna waa u hambalyeynaya waan ku faraxsanahay in degmada Gurceel Janaad maantay laga qoro buug dad badan oo aqoon u lahaynna oo ku sii baaho intii aqoonta u lahayd ama ka dheeraatay ama iloodana mar labaad la xasuusiyo waan mahadsantiin hadii oo ku dheeraaday xildhibaanada qaran Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed bay matalaan ama wax ku qabteen ama yaana ku qaban waa kuwa ku matala mudanayaal iyo marwooyin galab wanaagsan waa maalin Jimco ah sidaadaba waxa sunno ah in maalmaha Jimco ay ku jirto maalinta Jimco aan iraade saacad ducada la aqbalo aynu ducayno in halyeeygeena ama qofka qaranka Soomaaliyeed ku jira gabadha ama wiil inuu helo garab istaag rasmi ah aan ugu ducayno sidoo kale dadka dhalinyarada ee dalka ka siyaacaya ama taariikh meel kale u socdeen ama iyagana inay dalkooda la fahansiyaan ugu ducaynayna hadal badan haan ma buuxsho Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hadal ni yiri ma wada oran yirayna kama tagin waxa farxadii aan hambalyeynaya walaalkay Mustafa buuga la dhaho Gurceel Janaad horta Janaad hore ma aan aqoon Gurceel baan magaalada waaqanay maanta aan se baranaya waxaan maqli jiray Baydhabo Janaay malaha Baydhabo in lagu beeriyo baanta maamulka Koonfur Galbeed laga tirsiyo marka sidoo Cabdaayir ka dhawaajiyay kuwa badan oo halkan hortayda soo fadhiya magaaladooda waan ku soo shaacabay
weliba gabadhna waan kula soo haasaaway sanad ayaa waxaan marayay kollay waa isu warhaynaa oo social media ka wada soconnaa sanad ayaa waxaan marayay dhulka Soomaaliyeed bal inaan ogaado dadkaygii iga maqnaa iyo dalkaygii aanan muddada tegin ama waqtigu ii saamaxin ama beriga dawladnimada rasmiga ka jirta aan yara ama aanan jirinba ilaahay wuxuu ii suurtageliyay inaan ilaa iyo awdal gobolka la dhaho ilaa Gaarisa inta u dhaxaysa hal sano ku wareegay alxamdulillah waa ii suurta gashay cidna libkaga ma doonayo waxaan dunida sii joogaa ama inuu sii joognaa waa iska yartay waan ka tegaynaa dalkan laakiin waxayna saaran mas'uuliyad ah Gurceel waxay ku taalaa meel aad inooga fog laakiin ka ku dhashay iyo ka Hargeysa ku dhashay iyo ka Muqdisho ku dhashay waa inay u arkaan inay tahay magaalo Soomaaliyeed ay ku noolaan karaan kullay xogaha aan ku soo arkay dhulka Soomaaliyeed waxa kamid ah anigu nin warkiisu cad yahay baan ahay calanka buluuga ayaa sharaf igu filan inuu sumcadiisa soo noqdana wallahi baan ku dhaartay waa casare naftaydan u haligaya oo u jaraya inagana waa mas'uuliyadina saaran oo waajiba hadalkayga haddii aan soo koobo saddex u kala dhigo mid qarankan ka oranaya midna qarnigan aan ka oranaya midna qoraagan ka oranaya haddii aan ku horeeyo qaranka waayada waxaad moodaa in dadku riwaayad yar iyo fanaanad hebel baa meel hebla soo boqotay program baa loo diiday iyo midba hebel caayay iyo social media gabadh live soo gashay waxyaalo yar oo hanyare aan la isku mashquuliyo laakiin qarannimadii runta ahayd in aad looga dadka badankoodu yare aad mudinay dibadda ka joogaan baa muddo qaran Soomaaliyeed waxa weeyaan dadka horteeda fadhiya weeyaan ma jirto aayad ku oranaysa Siciido ama Caashay Faadumo ama Yuusufow Soomaaliya adiga xilkaama saaray haw shaqayn ma jirto laakiin waxaad moodaa waayada tan dambe SWL waxay ahaayeen 13 dhalinyaro lacag ma haysan Ingiriis oo boqortooyo oo dawladda inaga waaweyn soo gumaystay ayaa ku dul fadhiyay iyo Talyaani dadkaas way fikireen ilaahay mahadii way iska kiciyeen oo inaga maanta xornimo ku noolaanayna Cabdirasaaq Hogal Caafa magacayga la dhaho Jaajuur iyo John iyo Bush midna laba dhaho iyaga suurtageliyay alxamdulillah marka dadkaasu waxa kaliya soo hayay waxa ahaayeen dabarka ugu hayay wuxuu ahaa midnimo iyo wada jir haddii aan qarnigan u soo laabto maanta qarnigan waxaa la joogaa qarnigii isku duubnida iyo tartanka nololeed lagu jiray qarnina shabeel la iska celiyo ma joogno qarni libaax la iska celinayo ma joogno waxaynu joognaa qarni tiknoolajiyad iyo cilmi iyo wax wada qabsi lagu tartamayo inayna ka mid noqono diyaar mawtiin codka bal ka ruqoodays nooleeya diyaar mawtiin horta aad baad u mahadsantiin qoraaga mid ka yiraahdo qoraagu waa sooyaal qofku wuxuu yahay wuxuu dib uga akhristaa sooyaalka maxaa yeelay wuxuu dalkani soo maray haddaan la keedin oo la qorin ilmaha yari ma garanayo dalkiisa sidoo u eeka 50 sano 20 sano 40 sano ama 100 sano hal qarni ma garanayo sidoo eeka laakiin haddaad qoraal wax ugu sheegtid wuu garanayaa dadka halkan jooga waxaan leeyahay dhamaantii waad ku mahadsantihiin asxaabta badankood waa is wada garanaynaa haddii la bakroon yahay waxa mabda inoo ah udub dhaxaad waxa inoo ah fikir iyo midnimo Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed ee ku noolaa gobolada waqooyi ee Hargeysa iyo Burco iyo Boorame waxaan idin sheegayaa anoo Cabdirasaaq Hogal Caafiya sidii halka layga jeclaa layga sacabatumi jiray layga marti qaadi jiray shahaado sharafta laygu siin jiray in xamar laygu siiyo aan cidina iga xigin baydin cadeyn aad baad u mahadsantihiin galab wanaagsan bayd leeyahay wahagaag marka waxa sidoo kale nala jooga jaamacadaha oo runtii ah meelaha ugu muhiimsan ama aan dhahay meesha kali ah
dadku ay garaadkooda ka soo dhiseen oo dad muhiim ah oo bulshada qayba kala duwan oo muhiim ka qabtay ay ku noqonayaan waxaa nala jooga gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Salaam Ustaad Bashiir Owdiini magaca jaamacadaha ayuu ka hadli doonaa ila soo dhaweeya Ustaad Bashiir Owdiini waa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Salaam dhamaantiin waa ina salaamay runtii aad ugu faraxsanahay gaar ahaan haddii aan jaamacadda Salaam anoo matalaya inaan hambal iyo dhaho ardaygayga Mustaf oo macallin u ahaa runtii farxad gaar ah noo tahay haddii aan nahay baha tacliinta sare waxaan aad u dhiirigelinaa markasta ardayda ku dhiirigelinaa in ay ardaydu wax qoraan ayadoo luqadda medium instructionka ku baxda jaamacaddu ay tahay English ayaan haddana waxaan si gaar ah ugu dhiirigelinaa in luqadda hooyo wax ku qoraan runtii buugaan ahayna Mustafa wuxuu uga qayb galay Muqdisho Book Fairka la soo dhaafay aan u maleynaa federaalka ku hadlayay asaga iyo laba gabdhood oo kale jaamacadda ka tirsan jaamacaddu way promote garaysay way boombonisay runtii moralkan uu samaysay sidaas la mid ayaan ku faraxsanahay runtii inaan mar kale intaanoo mujtamac Soomaaliyeed isku yimid hortooda aan uga hambaliyayo qoraalka muxuu ugu dhigan yahay Soomaalida in wax la qoro waxay keenaysaa in wax la akhriyo Soomaalida waxaa la yiraahdaa waxaan u badanahay oral society aad wax looma akhriyo marka haddii dhalinyartu ay tartamaan oo sida la sheegay maadaama Soomaaliya in wax laga qorahay aad u dahan tahay adduunyada waxaa laga yaabaa in problemskii almost ay iska dhamaadeen oo gaabka wax laga qorayo iska yaryahay laakiin Soomaaliya meesha soo rogto bogga soo rogto waxa u baahan wax laga sheego marka waxaan isleeyahay mar haddii in wax la qoro ay tahay af qalaad oo kuwa adkayna wax lagu qorayna oo kaliya wax lagu qoray luqadaadii hooyo waxa laga qorayana aad u badan yihiin oo mashaakisha Soomaalidu ay aad u tiro badan yihiin haddii magaalooyinka noqon lahayd haddii dhaqaalaha noqon lahayd haddii meel kasta noqon lahayd waxaan aaminsanahay in dhalinyartu arrintaas ay aad ugu dadaalaan sida la sheegana social mediaha iyo ninkii dhalinyarta hadda hadlayay Soomaaliya si loo gaagaaminayay ama luqad kasta lagu sheekaysto waqti badan baa halkaas ku lumaya marka waxaan kula dardaarmayaa dhalinyaro in wax badan la akhriyo wax badan la qoray keenaysaa marka bal wax akhriya aad wax u akhriya kadib waxaad awood u yeelan doontiin insha Allah inay ku fududaato inaad wax qori kartid waxaan la dhahaa marka qaar ummadda islaamka haddii aan nahay ummatu iqra laakiin waayaan dambe ummatu la taqra isku bedelnay runtii waa wax lagu kala hormaro adduunka waxa lagu kala hormaray waa akhris oo aayaddii quraanka ugu horeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku amray inuu wax akhriyo waxay ka tarjumaysaa in badbaadada iyo horumarka ummadda ay ku jirto wax akhrin marka waa maasantihiin Mustafa si gaar ah ugu mahadcelinaya oo ku faraxsan runtii inaan kala soo qayb galo barnaamijkan oo shalay ugu casumay walow aan xafladan intaan iman ka hor codsado buug inaan arko laakiin waa heli doonaa insha Allah hambaliyaan leeyahay qorayaasha Soomaaliyeed dhamaantood waa dhiirigelinayaa in wax la qorahayna ma adka cid kasta ay qunful ku xiran iska furto kaliya waxay u baahan tahay inay ka soo go'do adiga inaad wax qorto markaas su'aashu waxay imaanaysaa maxaad qoraysaa sometimes waqtiga wax ku lumin kartaa waxaan fiicnayn ayaad qori kartaa laakiin waxaan haboon oo aan kula talinayaa daayarta wax fiican mujtamacana faa'iido u leh hadhowna nacraad qabaliya ama waxa la yiraahdo waxa waay xasaasiyad kala sameyn karin oo laga yaabo buugi falcil kalin oo keeno iyo mashaakil ijtimaaciya abuuro marka waa soo gaabinayaa dhamaantiin waxaan kugu hambaleynayaa inaad soo xaadirteen Mustafana niyadda u dhisteen sidoo kale anigana u dhisaayo in wax la akhriyana insha Allah ta'ala dhamaanteen kuwa inaan ku dadaalno jazaakumullahu khair wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh fikirkooda iyo maskaxdooda waxa ka soo maaxday aadka u qurux badan taariikhda Soomaaliyeed lagu soo bandhigayo iyo aqoonta Soomaaliyeed iyo waxyaalaha taariikhiyan loo baahan yahay in loo ogaado oo dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan ay fikir badanna ka qaataan khayraadka iyo taariikhiyan iyo dhaqankii Soomaaliyeed in lagu soo bandhigo oo ay dadku isku taxaluujiyaan barnaamijkaas aadaan ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay jamaahiirtan meeshan fadhida ee aqoon-yahaniinta u badan meeshan fadhiya waxaan u malaynayaa inay sugi doonaan insha Allah ayagana aan ka sugi doono buugga uu qoray Mustafa oo uga hadlayo taariikhda magaalada Guriceel ugu magacdaray
guriceel jannaay waxaan aaminsanahay in badan oo ka mid ah Soomaalida meesha fadhidana inay soo bandhigi doonaan taariikh midda la mid ah ay oga hadli doonaan magaalooyin kala duwan ee dalkeena uu ka kooban yahay ama gobol ha ahaato ama degmo ha ahaato ama deegaanada kale kala duwan ha ahaadeen inay soo bandhigi doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed soo bandhigaan waxyaalaha miskaxdooda ka guuxaya waxyaalaha ay isleeyihiin ummadda Soomaaliyeed oo ka faa'iideysan doonaan ee ah taariikh ah inay soo bandhigi doonaan aan rajaynayna insha Allah waxaan aad u dhiirigelinaynaa qof alaale qofkii ka qayb qaatay barnaamijkan lagu soo bandhigayo buugaas lagu dhiirigelinayo walaalkeen Mustafa inuu maartay xafladaas uu qabsaday oo xafladda u qabsoontay waxaan leenahay kuwa kale Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed ama dhalinyarta ah ee aqoon-yahaniinta insha Allah waxaan ka sugaynaa buugaas iyo buuga kale oo la mid ah ay ku soo bandhigayaan fikirkooda iyo insha Allah taariikhda wadanka Soomaaliya iyo khayraadka uu leeyahay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan leenahay Mustafa hambalyo aad u mahadsan tahay soo bandhigaada wacan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad si horumarin doonto hal abuurnimadaada ee ah inaad qoraannimadaada si kordhiso insha Allah magaalooyin badan oo kale oo Soomaaliya ka mid ah inaad ka hadli doonto haddii Ilaahay yiraahdo saasaan rajaynaynaa aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweynayaa oo aan hortiina keenayaa maamo nagu qaali ah runtiina aan aad u jecelnahay waxaan ka dareemayay sida karaamada iyo xushmadda leh ee aan hoolkan ugu soo dhaweynay hortiina ayaan keeni doonaa Jawaahir Maxamed Cilmi sanatarada aqalka sare ila soo dhaweeya Jawaahir Maxamed Cilmi aad baad u mahadsantahay barnaamijka aad nagala soo qayb gashay soo dhow بسم الله xildhibaanada qaranka wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle mas'uuliyiinta kala duwan ee goobtan fadhida qoraaga wiilkaas runtii oo hadalkiisa aad u jeclaystay hadalkiisii iyo mudane Mustafa oo ay tahay galabta asaga xafladiisa daafurka mid aan fadhino dhammaan ka soo qaybgalayaashiina macallimiin ururo arday waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan uga mahad celiyo Mustafa waa nin dhalinyaro ah laakiin marka la fiiriyo markuu meeshuu ka soo jeedo waxa waaye nin dhaqanka muxuu ahaa ku jira nabadoon caan oo deegaanka runtii odayaashooda ugu fiicnaa baa dhalay nabadoonka kale uu ka sheekeynayo Maxamed Sabriin asagana waa adeerkiis inkastoo maxay ahayd buuga uusan sidii la rabay aan maaragtay aan ugu faraxsanayn markuu hadalka uu sheegayay sababtoo ah dadka markaad wax qoraysid dadna taariikhda laga wareystaa oo dhaqanka iyo deegaanka dadna waxa laga wareystaa dadkii soo jiri jiray oo bulshada ahaa oo deegaankan ka soo dhashay oo ama wax noqday ama maxay ahayd wax dhihi jiray marka meelahaas marka hadda uu tilmaamayay xoogaa waxa iiga muuqatay dhaliil laakiin dhaliisha waa markii koobaad uu iska soo dhaqi doonaa insha Allah marka dambe laftiganagu taladan wax ku yeelan doonaa buuga dambood qoraysid inaad wax naga warsatid dadka naga muxuu xoogaalka ah taas loo baahan yahay marka diyaarna waa kuuna gacan waa kugu siinaynaa taas waa midaas midda kale waxay tahay runtii dhalinyaro maanta nasiibka adinkuna aad leedihiin dalkuna uu leeyahay wax la koobi kara ma aha dhalinyaro sidii wiilkaas uga soo sheekeeyay dhalinyaradii SYL aqoon ta aad maanta leedihiinna ma lahayn hantida aad leedihiinna ma lahayn tirada aad leedihiin iyo tayada aad leedihiinna ma lahayn marka maanta adinku intaad aqoontii haysatiin hantidii haysatiin maxay ahayd tayadii haysatiin tiradii haysatiin waxaa la rabaa in gadaal loo laabto taariikhda gadaal loogu laabto maxaa la ahaan jiray xagee maxay ahayd Soomaaliya soo martay maxay dhalinyaradu ka ahayd qaybtee ka ahayd qayb walba ilaa adinku xataa isku muujisiin oo wixii aad ahayd inaad soo saartiin halgankii SYL waxay moodaa 13 dhalinyaro
unbaa ilaa maalinkii ilaa maanta la sheegi adinkii waxaad ka baxdeen dhexda waxaa la rabaa adinkii kaalintiinni inaad soo istaagtiin dhallinyaradiinna maanta joogta aqoonta leh tirada leh tayada leh inaad soo istaagtiin baa la rabaa kaalintiinna aad qaadatiin oo aan mar dambe laga sheekayn SYL iyo hala soo qaato tusaalaha loo soo qaato laakiin SYL dadkii ka dhashay inaad noqotiin adinkaa la rabaa taas waa midaas tan qoraalnimada oo qorayaasha runtii Soomaaliya ama bahda hadda la isku yiraahdo inta af Soomaaliya ku hadasha qoraalku waa loo kacay kicidaas loo kacayna qayb bay dhalinyaradu ka yihiin waxa galabtii aan joognaa maxaa la yiraahdaa furka buugga Mustaf yartiina baafaayadana buuggeeda hore uga qayb gashay kuwa kale oo dhalinyarada hadda ka horaan ka qayb galnay dhalinyarada dadaalkiina waa wadin laakiin si laba laaba insha Allah waxaan rabaa inaan halqabsi u soo qaato halkaan ay ku koobtay gabadhaanu waxa looga baahan yahay maxaa la yiraahdaa aqoonta maal aad ku dadaashiyo dollar aad abuurto waxa kaaga door wacan adoo daartamaanko cilmi doona waliga wuxuu maanku korayaa maskaxduna hagaagtaa markaad hesho tacliino cilmi aadan moogaan gabadha buugga ay siisaan halheedka ay ku soo qabataa wax walba ku kooban yihiin marka la fiiriyo runtii dhalinyaro waxa la idin ka rabo marka intaan ka gudbo waxa weeye deegaanka Gurceel waa deegaan runtii aad u ballaaran intii aragtana way aragtay intaan arkina way arki doontaa insha Allah waa magaalada ugu population ama ugu dadka badan gobolka Galgaduud ay ka tirsan tahay waxaad ka arkaysaa hadda soo dhaweynta madaxweynaha oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalinkii dhaweydii tagay meesha Dhuusamareeb iyo gobolka magaalo madaxdiisa meesha ugu dadka badneed ayada ahayd marka inay ugu dad badan tahay ugu dhaqaale badan tahay ay tahay magaalada waliba muxuu ahaa dhaqaalahana ayada ay tahay waa wax la yaqaan waaye laakiin haddaad barinin oo adigu aad ogtahay laakiin inta aan ogeyn aad u sheegin see lagu ogaanayaa waaye in loo sheego waxa ay tahay oo Gurceel waxa ay tahay dadka la baro oo ayada kuwii ka dhashay kuwii aan ka dhalanba la baro waa wax aad runtii loogu baahan yahay waana wax buuggaan wiilku soo bandhigay oo uga mahad celinayno waxaan rabaa inaan sheekayna la wadaago TV-gan oo Universal Media oo Malayna Cabdisalaam Heeradi ka shaqeeyo Universal Soomaal wuxuu soo qaataa barnaamij TV-ga asagu malaha shaqaalu ka yahay barnaamijku soo qabtaa wuxuu ku wareejiyaa waqooyi galbeed oo dhan tuulooyinkii iyo degaamadii hore iyo meelo waxaan marka habeen anagoo fiirsanayno oo badan baa wiil yar soo boodo wuxuu yiri horta ninkan TV-gan maalin walba uu meelahan kula wareegay meelahan ma naqaanay meelaha aan naqaano mu yimaado wuxuu ka sheekeynay markaas meel uu lahaa Bullaxaar waa meel banaan oo dad u taga Bullaxaar baa la yiraahdaa dadkii uu baraya wuxuu kaas yiri ma naqaanay meelaha la yaqaan mu yimaado marka asoo Bullaxaartiisa iyo wuxuu rabaa iyo meelihiisa inuu dadkii baru rabaa oo indhaha dadka ku tuso TV-gii malaha maxaa la yiraahdaa qalabkan uu wato qarash ka baxaya malaha TV-ga iska leh annaga maxaa noo diiday marka inaan TV-yadan aan ka shaqeyno xataa ku barno dadka deegaanka naga inaan ku barno maxaa diidaya ma jiraan marka taasna ha lagu darsado wiilasha saxaafadda ka shaqeeya iyo gabdhaha in ayaduna deegaanka ay baraan dadka oo ay tagaan meel walba oo yiraahdaan waa tan meeshan waa saan tanay ahaan jirtay inay dhaana eekan taasna talada lagu darsado aad iyo aad baan mar kale u soo dhaweynayaa Mustaf guuleyso insha Allah wixii kale tan anaga garabkaaga taagan hadii la yiraahdo aad baan kuugu hambalyeynaa adinkana ka soo qayb gal wacan waa maadsantiin aan magaca iyo maamuuska uu inagu joogo aan ugu wacaya aan jeclahay inaad ugu soo dhaweysaan mudane xildhibaan Mahad Maxamed Salaad السلام عليكم waxaan malaynaa waa codkayga hadii la maqli waayo maamaayaan iska dhex gashanaa malaynaa marka nin odayaha hadda markaan soo gelayo wuxuu ugu yiri waxaan rabnaa alaabtii basbaaska ku maamaahi jiray marka waxaan ku yiri qolkan asagaaba kullu basbaasaysan basbaas ma laaba kara dadka meeshan fadhiya iga dhaaf dhammaantiin saa u joogtiin magac iyo mansib kastood ku joogtiin waxaan ku salaamaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
salaan kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhalinyaradii isku xilqaamtay soona abaabushay xafladdan aad iyo aad u quruxda badan oo intanadan isku kaana keenta meeshaan wajiyo badan oo laga yaabo annaga nalama arko ama annaga dadka ka dhuumanna ama waa naga la baqaaho waxaa la yiraahdaa qoladan idaa u tagtiin adinka imtixaan mudanay marka in jaanis la isku helo iyada ruuxeedu meesha la isku salaamo aad iyo aad ugu mahadsantihiin aad iyo aad aan ku mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaa sidoo kale Mustaf Warsame Sabriye oo wiilka dhalinyarada isku xilqaamay inuu maanta buuggaana soo gaarsiiyo oo uga hadlayo magaaladanadii iyo magaaladan xildhibaanka u ahay aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa runtii wax kasta oo bilowda gadaali ka hagaaga cunugu hadda maanta markuu dhasho hore kama soco karo waa ogtihiin in ayaan la hayo la habo dhabta lagu hayo aana la siiyo seexdo gurguurto istaago socdo wadadaasoo mara ilaa uu ka qaangaaraaho shuuntiisii kaloo ilaahay ugu talagalay haddaba caafimaad iyo cimri helo uu ku soconayo wax kastoo la bilaabo marka qalqalooc laga weymaayo Allah subhanahu wa ta'ala munazalka uu soo dejiyo kitaabkiisa ayaa wax dhameystiran iyo wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu sameeyay ka jira marka walaalkeen bilow fiican waaye runtii aad iyo aadan ku bogaadina waxaan aaminsanahay boqolaal ama kumanaan dhalinyaro oo maanta adiga da'daada jira ama ka weyn oo waxaa jira maanta ku mashquulsan waxaan dalkan iyo dadkan iyo ayaga dantooda baan anfacayn marka inaad taariikhdii dalka ku laabatid 4 sano waqti gelidid ka soo dadaashid runtii waxaad aad muhiimad u lawaaye waana kugu hambalyeynayna waxa ka dhimanna toosina u baahan yihiin insha Allah wixii anagu aan xogaal u nahay iyo wixii ka qabiyaan kuwa dambaan rajaynayna insha Allah magaalada looga hadli doono inay iyaduna ay kaabi doonto hadii Allah uu dilo ogolaado intaas sidaan ugu gudbo mahadcelinta Mustafa iyo asxaabta kale طبعا qoraalka marka laga hadlayo asaga cilmiga bini aadanka asaas ah Soomaalida dad lagu xanto weey amaba caada aanu leenahay inaan nahay dad oral society waa hadalna warka waa isgaarsiinaa hebel ayir ayaad maqlay laakiin wax qoran ma jiraan oo diiwaan wax ma qoraan marka maanta inaan ku dhiirano runtii oo aan isku dayno inaan wax qorno oo dhaxal aan u reebno dadka annaga naga dambeeyo wax aad iyo aad u qiimo badan waa qofkuna haduusan wax qorin oo san wax aqrinin wax macnaa oo naftiisa ugu sugan yahay mujtamacana ugu sugan yahay ma jirto sida aad la socoteen aayadii quraanka ahayd oo rasuulna sallallahu alayhi wasallam markii waxiga lagu soo dejinay Allah subhanahu wa ta'ala wixii laga bilaabo waxay ahayd iqra bismi rabbikal ladhi khalaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalami 'allama al insana ma lam ya'lam waxad ka dareemay marka meeshan qoraalka iyo aqoonta muhiimadda ay u leedahay bini aadanka inay tahay wax weyn haddii wax kale ay jiraan ayada lagu bilaabi lahaa laakiin waa lagu bilaabay rasuulna sallallahu alayhi wasallam waa la socotiin markii waxay lagu soo dejiyay oo iqra la yiri waa isduuduubaa la yiri ma ana biqaa'irin hadana waa lagu celiyay iqra la yiri markuu jibriil markuu imaanayo hadana waa jujuubaa la yiri ma ana biqaarin hadana mar saddexaad lagu celiyay sida xadiidka lagu hayo marka cilmigu asaas waxa waa amaba aqoonta in horta wax la qoro oo wax la aqriyo qof aan wax aqrin oo aan wax qorinna cilmi ma yeelan karo qofkuna cilmi haduu salahayn naftiisana wuxuu kuma fadhiyo mujtamaca Soomaaliyeedna wuxuu ugu fadhiyaa lama arko dhibaatooyinka annaga naga haysta Soomaalida hadaan nahay qoraalka oo runtii wax tixraaca oo aan leenahay aysan jirin iyo wax laga soo gaara dadka annaga naga horeeyay iyo annaga ruux annaga nafsadanada markaan fiirino inta maanta wax qorta boqolkiiba hal waa ka yarta taas marka micnaheedu waxay tahay awooyaashii annaga naga horeeyay iyo aabayaasheen xogaa yaraan ka roonahay laakiin meeshii nagala rabay umana dhawin mana joog hadda maanta haddaan intanada meeshaan fadhina aan isweydiino qofka Soomaaliga marka la weydiiyo asalkaaga yaa waay qof waliba meel u aada mida Afrikaan aada mida Asian aada mida Arab aada mida wuxuu ku leeyahay ilaahay umayo anigu meeshaan aan toos aan dhulkaan aan uga soo beer intaba waa leeyahay waxa kale intaas dheer abtirsimaaga maanta hadii lagu weydiiyo qofka hadda maanta meeshaan fadhiya dhalinyaradeen hadii la idin weydiiyo qofka ugu qatarsan 20 oo gaarsiin kara ma qofka ugu badan ayri marka kor la aad sagaal waa qofa 5 kule qofa 9 kule qofa magaciisa saddexan ba yaqaana qof bas waa marka asalka nagi hadaanan anagi dhalinyarada maanta aanan aqoonin wararta xagee ka nimid oo wax noo qoran aysan jirin awooyaal deeysa ka tagin qabayaal deeysa ka tagin annagu hadaan ka tagin caruurtanaduna sidoo kale bayla horta u noqonayaan inaan ognahay markii adiga asalka xataa fag hadaadan aadin abtirsiimaha hadaad raayida waxaan u maleynaa waa heli kartaa si sahal laakiin la geli maayo waqti badan la geli maayo
oo lagama yaabo waqti badan in la geliyo qofka waa suuragal in la baro la yiraahdo ree hebelata oo ree hebelkaas magac ahaan uu haysto laakiin qofku inuu abtirsiimihiisa yaqaan abtirsiimaha Soomaalidu laba shay isku qaldaan waa qabiilka iyo qabyaaladda qabiilka waa lagu abtirsadaa waa nasabiyad wax ceebahu leeyahay lama arko jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila lita'aarafu ayada quraanka waa tii laakiin waxaa daran qof aad taqaanid inaad u qabyaaladeydid inuu yahay qofkaanu ree hebel oo adiga aad wax ugu dhintid adoo uga hiilinaya mid kale oo markaas is leediin xigtaati meesha dhibaatadu ka imaanayda meeshaas meesha marka mushkiladu ay ka timid oo taariikhdanada iyo asalkanagiiba aan u weysanaho dadkii dhaxal aan uga tagi la'anahay labada shay oo asaaska oo horta mid waa wax qorid la'aanta anagu aan ka tagi la'anahay ama kuwii naga soo horeeyaysan ka tagin taariikh qoran oo dadka tixraac u noqoto tan labaadoo timidna waxay tahay dawladihii dalkan soo maray kamaysan shaqaynin dadka inay uga tagaan diiwaan sax ah oon siyaasadaysnayn oo xaqaa'iqdu sidii ay ahayd ah ugama tagiina qoraallo waxay ka tageen boqolkiiba boqol la dhihi karo maanta ama boqolkiiba 99 la dhihi karo hadiiba 1% laga reebo qabyaaladaysan oo is leedahay ruuxan iyo xagee laga keeno oo dadka maskaxdooda la raba in lagu guuriyo ayada ruuxeed tusaalahan dadaan soo qaadan tusaalooyin badan jira laakiin tusaale yar oo kooban dadaan soo qaadan sharma la xaladood oo markii hadda Soomaaliya xornimada ay qaadato dalkan Soomaaliya oo soo maraa jira oo dawladaha iskaga dambeeyay waxba laga wada qoray qoraalada laga sameeyay marka akhridid qof waliba bi'ada markaas uu joogo iyo asaga meesha uu ka soo jeedo ayuu wuxuu qoraa ku cabira ee kuma cabiraya xaqaa'iq jira oo dalka ka jira yaani hadda 60kii iyo 69kii Soomaaliya markii xorriyadda ay qaadatay dalka dawladda ka jirtay 69kii iyo 91diina nidaam kale dalka ka jira 91dii ilaa 2000 burburaan ku jira 2000 ilaa 2000 iyo 12kiina nidaam marna federaal ah laakiin ku meel gaar ah ayaa dalka ka jira 2012 ilaa hadda aan joognana waa marxaladii shanaad ugu dambeeyay waxaan ku jirnaa nidaam federaal oo dadku ku meel gaarka uu ka baxay dawladda dalkan waa ka jiraan kaba soo qaada burburkii wixii ka dambeeyay hal qabyaaladay hadii la roo Soomaalidu waa kala fogaadeen hal yiraahdo laakiin 60kii iyo 69kii dawladdii dalkan ka jirtay iyo 69kii iyo 91dii dawladdii kale oo dalkan ka jirtay maanta hadaan idin weydiiyay maxaa u taqaaniin adin yaa ii sheegi kara haye adiga kaana u taqaanaa oo 69 ilaa 90koodii 60kii ilaa 69kii maxaa loo yaqaanaa ya dawladdii rayidka haye dawladdii musuqmaasuqa haye ninkaas waa saxay qoraalada laga sameeyay 60 ilaa 69kii ee ugu badan ee dalkan yaal ee taariikhda Soomaaliya aan isleeyahay qayb weyn oo kamid ah waa lagu dulmiyay waxa la leeyahay dawladdii musuqmaasuqa dawladdii horta dalkaas xilliga ka jirtay dawladda kaliya ee dimuqraadiga Soomaaliya soo martay hadaad moogtiin dawladda kaliya waxay ahayd qof kasta oo Soomaaliya oo xaq u lahaa inuu codkiisa dhiibto waa lagu kala aragti doonaa karaa dabcan laakiin dadka Soomaaliyeed inay inta dareereen codkeeda dhiibtaan oo qofka rabaan ay doortaan ayagoo qabiil aan ku dooranaynin ee xisbiye siyaasadeed oo 120 gaar ah lagu doorto dimuqraadiyada horta ma taamsama aabaha iyo hooyada iyo wiilka iyo gabadha yaani waa nin iyo gabar isqaba laba cunug ay dhaleen wiil iyo gabar afartoodu afar xisbi oo kala gadisan oo kala codeynayaan oo kala aaday qofka kala qasbayana lama arko taariikhdaas marka bright ka Soomaaliya soo martay ma laga sheekay cid dhalinyaradana martay ma jirtaa daliil cad waxay u tahay marka nidaamyadii dalka soo maray taariikhda qayb ka mid in inta la siyaasadeeyo annaguna aan iska qaadanayna wixii naloo sheegay aan taariikhda dib u raacay dhalinyaro marka ani waxaan qabaa waqtigu waa dheeraada meeshan waa kulushaay inaad wax akhridaan u baahantii inaad dadka xogogaalka oo dadkii ka haray inta badan waxa la yiraahdaa moogta odayada waxa la yiraahdaa kuwan waa qariban yihiin ma inaga hor wareegaan ayaguna waxay yiraahdaan dhalinyaradaanu maba dhalane goormay ay isku taagayeen ama ay soo gaareen awoodda ay odayaashan ku muquuninayaan odayaasha waxa loo baahan yahay xigmadda ku jirta waa socdaan maadaama quraal oo jirin waxa horta qalbiyadooda ku jira in laga la haro odayaashana waxa laga rabaa waxay tahay dhalinyaradan mustaqbalkii dalkan weeye ayagana waxa laga rabaa inay risaaladan sii gaarsiiyaan kuwii ay dhaleen jiilka lay u sii gudbinayaan inay tababaraan oo ayaga ruuxooda sii gaarsiiyaan waxaan ku talinaa marka waxa la akhriyo waxa la qoro
qof kastoo wax qoraya ama wax akhriyana in la dhiirigeliyo niyadda inaan laga jibinin haddii wax ka qalloocan yihiin in lala toosiyo la yidhaahdo berriyay ka hagaagay ammaantay meesha ay ku joogto hore uga sii wad intaasaan idinkugu hambalyaynaa maamaayooyinka iyo siyaasadda dib aan u dhiganaynaa madalla kale aan uga hadli doonaa insha allah aad iyo aad aa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حلبان ماد محمد صلاة داد بومات سياي يان لبحن هنلو فرديو برامجك واقب قبو عمري تجي محل يرادا عبلوك مسبوتيو مركب وحن جعلها هاي إن مدح هل كان نلجوكتا يا مصطفى سمي سبريه أن هل كان كانوا مصطفى وحا أو مدمد بوجي سجول على الجناد أو وجودن سين دونا مدح ذا maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka nagala jooga ugu horreyn waxaan jeclahay Mustafa Farsame Sabriye in halkan uu imaado iyo Yunus Xaaji Cabdullaahi oo ah hagaag marka waxaan jeclahay inay noo imaato oo halkan aan ku soo buugan uu ku guddoonsiiyo Mustafa senator Jawaahir Maxamed Cilmi isoo dhaweeyay sacabka كاميرمانada waxaan codsanaynaa in dhankoodu ay sawirro qurux badan inoo qaadaan si barnaamijku saameyntiisa ugu badan aan social media dib uga aragno hada social media waa meel kale oo aad muhiim ah xildhibaanad aniga senator Jawaahir Axmed Cilmi la yiraahdaa dhusbareeb baan ku dhashay Gurceel kuma dhalan laakiin reer Maxamed Cilmi uu sheegaa reer Gurceel waa أنا محمد علمي ورهر قرعة لكن سنترات حلبان جواهر أحمد علمي ورود اسم الرباضة أو سنترات دورة فترة لك أي بوك قدوسين يا مصطفى هذا ما سنتهاي مامو وهاجك مركنا وحان سودو ويننا أو سودو كلا ومصطفى بوك قدوسين دونا حلبان مهد محمد صلاة يسوق قرعة لو كل شيء حلبان مهد محمد صلاة ونوشي قدونا aniga horta waa mahadsantiin xildhibaanka horta Gurceel ah laakiin dhusmareeb baan ku dhashay aniga ruuxay warka waa mahadsantiin hagaag horay ayuu inoogu sheegaa u maleynaa وزير كحجينكا وزارة الكلوماسية iyo kheyraadka badda Cabdirashiid Cali Cadow isagu aniga huba Gurceel oo ku dhashay Cadow anigu reer Gurceel aan ahay anigu Gurceel aan meeshayda labaadna waa Jowhar waa laakiin dhusmareeb aanu kuma dhalan meel oo shalaqbeen iyo Gurceel u dhaxaysaan ku dhashay Gurceel aan dala imid ilmihiga Gurceel ay degan yihiin intaan oo dhan reer Gurceel waaye reer dhusmareeb yaa dhusmareeb ka jooga gacanta taaga shan qof le waaye waa ka cod badanna aad aan ugu faraxsanahay inay federaalkuna noqdaan dhusmareeb baalkii maamul goboleedkuna oo noqdo Gurceel aad aan ugu faraxsanahay hagaag waxaan ku xijinaynaa oo nagu cayaa wasiirka warfaafinta maamulka Hirshabeelle Cabdiweli Cabdullaahi Maxamed xagoo ku dhashay isleedeen waa arki doona meesha ku dhashay sanahay aadaan ugu hambalyeynaya Mustafa ani waxaan ku dhashay degmada Beledweyne magaalada hoosta وهاجاج أنا روحي meeshaan ku dhashay dib aan idinkaga sheegi doonaa waxaan markan aan wacayaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka Centurion markan waxaan wacayaa gudoomiye waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha ee maamulka Hirshabeelle Xuseen Maxamed Torire saro Mustafa waxa uu guddoonsiinayaa buuggiisa la yiraahdo Federaal Sunnoqoy waa buul federaalka si gaar loogu maagayo hagaag madaxdu kale iyaguna way nala akhrin doonaan buugga iyo waxyaabaha oo Mustafa si gaar ah u dhalinayo nidaamka federalismka ee Soomaalidu ay qaadatay aad baad mahadsan tahay wasiir
كل وحيد سويا ماشي كلش وما سنتين أنا وحنا كلش قبل كشباب الدحى شباب الدحى مقالة وجوهر وماشي هذا مثلاي وما سكت haddii madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka aragnay dhalinyaradan u laaban doonaa markana waxa aan wacayaa Cabdirasaaq Hogol Caafi hore yar idinku sheegay meesha ku dhashay balse isaga si sheegi doona Hogol Caafi ninka dhalinyarada ay la soo dhaweeyay buuga Gurceel Jannaad ninkan hore wuxuu yiri anigu Gurceel kaliya naqaanay laakiin jannad kan way iga dambeys bay جبرت بدني ماشى توسو بشمال من الشعب قوم هاي قوم أنا سينا أنا كنا أنا صوتي بسينا لا بس أصير فرسان هاي عبدالرزاق Hogol Caafi ما عاد كسويسان شاكل بس يفوقات هاي كلي waxaan aaminsanahay shacabka ugu badan ana ii tumaysan markay raado meeshan ku dhashaan sheego waxaan ku dhashay meesha Soomaaliya ugu quruxda badan jacaylkuna ka soo asaasma waa daalo argaba laakiin anoo madaxweynaana insha Allah anoo madaxweynaana Gurceel baan ka digi doonaa insha Allah أنا كنت سنة تجنبي haddii marka barnaamijku waa gabagabo xilligan wuxuu ka dambeeyay dhalinyarada waxnu fasixi doonaa halkan inay imaadaan balse wax yar waxaan jeclahay hortiin inaan keeno wiilkii ugu horeeyay buugga Gurceel Jannaad iibsaday asagu halkan jooga waa ninka lagu magacaabo Cali Shaafici وعلي شافعي حاشرادي ضد بدنا حاشرادي قارن مقعسي Gurceel عنوكية علي شافعي ومسيحي إيه صاحبي هجاج مركنا قبل أيام جوجنا بوك وقطن بيا يونس حاج عبد الله أو قدومية قدي قواد حفلة ده قبل نقول مقعابو فردوسة أو رنيرة دروس مريب كسوجي ده كميدا أي أنا هالكنا نقول عنا سبوك Gurceel Jannaad دين كذا نقول دونسينو برنامج قبل يوم مريا maadaama buugan Gurceel laga qoro si dhalinyarada lamid ah dhul samareeb uga qoraan maadaama challenge Gurceel dhul samareeb halka waxa ka uga jiro fardoos soo dhawo madaxda ayaan macsalaamin doonaa oo markaan sii dhaweynaynaa balse markaan protocolka gaar ahaan kooxda barnaamijka dhanka kaamirada nagala shaqeynaysa ayaa naga codsaday in Jawaahir Maxamed Cilmi halkan mar kale soo istaagto waa Jawaahir Axmed Cilmi cafwan mar kale soo dhawo waa sawirka ugu dambeeyay barnaamijka si ku talagal ah aan ugu wacno in qof halkan soo istaago sawir looga qaado aad baad u mahadsantihiin senator Jawaahir aad baad u mahadsantahay xildhibaanada kale iyo wasiirada nala jooga Maad Maxamed Salaad aad baan kugu mahad celinaynaa wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo dekedaha Hirshabeelle wasiirka warfaafinta Hirshabeelle iyo wasiir Cadow oo aan leenahay madaxaad noo saaran tahay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxa buugagta ayaa marka u furantiin maqribka marka soo dukanay kadibna halkan waan sii joogi doonaa si buugagta aad u iibsataan senatarada ayaan idinku soo dhaweynayaa raalli ahaada markaan leenahay aniga mahdiyo waxaan ku dhalanay dhul samareeb ma ahan inaanan Gurceel matalin ama aanan u dhalan waa u dhalanay laakiin qofka meesha uu markaas gurigii uu ku dhashay dhaliyadaas la sheegay un baan u dhahayna moogiye annaga dadka deegaanka nahay mas'uuliyiintiina nahay aad u mahadsantiin raalli ahaada